اللي راح الدوانكي أحمد باشاني oo laga soo doortay Tarbaj meeshan waxaan iskugu imaadnay in ka cabadno arrintii shalay lagu dhawaaqay fadigtii shalay lagu dhawaaqay oo la leeyahay midnimadii beesha fayaan isakeenayna anaka qalad intii taan u arkayna haddii la rabo midnimo la rabo oo 2017 qafkii loo soo qaaday 2022 waa governor adig kaliya laga dhigaa la tahay darashada laga tuuray oo hal qaf mar kastaba la dulmihaya midnimada waa bilaabo labadiisa dhinacoon aan ka hadlayna dhinacoon aan ka hagaajino intay sax ahayn aan u malaynayna anaka qalad intii la subin aan arkayna ani waxaan leeyahay aniga waa xildhibaanka Tarbaj governor ugaas waan daba taaganahay ilaa kursiga meesha u dambaysa iska gaara waan la joognaa odayaashana maanta aan la kulannay odayaasha hadda shiraan ka soo baxay waxayna dhaheen boqolkiiba 80 waxay dhaheen waan ka warhaynaa arrintan ugaas loo ballan qaaday intii jirto waran hayna maadaama asballanka jira oo isqalad dhacay anagoo xildhibaanayaashana la dhahay arrintan ka soo shaqeeya waxaa la yiri qalad intaas dhacan u arkayna baadidooda saasayde markaan wada isku noqonaa waxaan rajaynaynaa isku noqoshada waxaa ka soo bixi doonto ugaas kursiga loo dhaafo weeman aan isku weemaanay inaan qoladii ama qowskii aan ka dhalanay aan codsi aan u yeernay runtii annagoo yeeritaankayna uu ahaay inaan u sheegna taagnaashada ay keentay qanac darradii wixii ka soo baxay sultanate kafay shalay go'aankii ay noo keeneen inaan ku qancilaanahay oo u aragna nidaamkii ama waxyaalihii ay murmurayeen inaysan saxeen runtii shirka aan maanta iskugu imaanay boqolkiiba 90 odayaalka ka hadashay ama ummadda iskugu imaaday waxay cadeysay in 2017 ninkan walaalkay waas ballan loo qaaday ballan siyaasad loo qaaday laakiin kollayba waxaa jirta ummadda waxay ilmaameen inay muslimiin yihiin oo iska dhaadhicinaan ama ay isu sheegayaan siyaasa ballan male waana nidaam ama dabci runtii muslimiin haddaan nahnay aan ku weynaanayna oona dadka ka gadahayna waa fikrad aad iyo aad qalad u waa fikrad aan wanaagsaneen waa fikrad laga raba ummadda reer Wajeer inay aad iskugu noqdaan markay ballamaha ay qaadayaan waxaa kaloo rabaa inaan sheego kuuraha ama codka dadka ayaa haysta haddii la isku gafa tala la isku gafa waxaa soo baxaysa qof kastaba inuu dhaha aniga ummadda ayaan u tagayaa cod baan codsanayaa in la doorto baan rabaa wax sharci ah oo ka hor imaadsan arrinta ayde ma jirta marka hadda waxaan sheegaynaa waxa way inuu waa socdo candidate uu yahay ka noqoshana ay jirin halka shayga oo looga noqon karana wixii odayaalka u sheegnay ay tahay kursigii shalay loo ballan qaaday oo la yiraahdo war kursigii haddii cidii ay rabto inaysan ka dhumin ugaas ayaan ku soo celinay in la dhaha wixii intaas ka baxsan waxaan rabaa reer Wajeer inaad naga warhaysaan codkiina nasiisaan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad waxaa magacay waa ugaas sheekh maxamed oo u tartamaya kursiga governor waxaan rabaa inaan ka hadla arrintii dhacday oo lagu soo saaray governorga qowska fayga oo maartay in Wajeer loo geeyo ay ahayd runtii aad iyo aad ayaan ugu qoomamoonay wixii ka dhacay shalay processkii ama nidaamkii la qaaday kumaanan qancin waxaa noo soo baxday inaad processkaas inuu ahayn process sax ah waan aad iyo aad ugu xunahay wadaadadii ama sultaaneedkii oo maartay aan u dhiibanay amaanada inay amaanada ka soo bixi waayeen ayaan aad ugu xunahay waxaa kaloo jirta in aniga li ballan qaaday kursi 2017 inay dhaheen waxban ballan qaad ma jirin ballanka bax waa diin ka bax ballan darro waa diin darro runtii ummadda hadda iskugu imaaday shiraan ka soo baxnay oo qowska iyo madaxdiisa waxaa la dareemay inuu dhib jira anaga codsanay inaan noola imaado waa noola imaaday haddana waxaan istusnay ballan inay jirtay
qowskii u hadlay qowskii hadal ka soo baxay waxa waaya inay ballan jirtay oo qofkii dhahay ballan ma jirin inuu been sheegay inuu xad gudbay marka waxaan leenahay nasiib xumadu kulley way dhacday haddana waxaan leenahay in la isku noqdo annagana kulley horey aan u soconnaa laakiin dadaan talo u dhiibin oon dhahnay bal isku noqdo wax warra keena wax lagu qanci kara keena waxa lagu qanci karana runtii aniga waxaan ku qanci karaa inaa nominationka laysay ayaan ku qanci karaa maxaa yeele xaqaan u leeyahay ballana la qaaday ballantana iska maaha wax vacuum ama meel maaragtay iskaga soo baxay maaha waa wax laga soo shaqeeyey waa waxaan mudanay waa wax maaragtay aan xaq u leenahay oo sax ah marka reer wajeer waxaan ogeysaynayaa insha allahu tacaala option ama mataqaanaa madaxtinimo oon isu soo taagnay oon u soo halgannay 10 sano oo soo dhaafnay inay weli socoto qofna kuma xumeynayna waxaan ka mid nahay mataqaanaa nimanka tartamaya ayaan ka mid nahay qowska reer aabey kursi doonayaan waxaa ku wanaagsan inay isku noqdaan intaasaan leenahay